boqolaal dad ah ayaa lagu qasbay in ay guryahooda ka guuraan bariga Uganda kadib markii buur ku dulduntay dhowr tuulo oo ka hooseysa buurta Elgon. waa dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacda dhul ay dawladdu sheegtay in aanay ku habboonayn deegaan. dadka ku dhaqan dhulkaasi ayaa arrinkaasi ka soo horjeestay. maxamed xaraare ayaa inoo haya. buurta Elgon waa buur ay ku tiirsan yihiin dadka deegaanka Bigusu ee Uganda. waxay ugu yeeraan buurtii hooyada. hase yeeshee degaladani waxay marar badan sababeen geeri. sanadkii 2010 buurtani waxay ku dulduntay tuulo ka hooseysay oo ay ku dhinteen dad 300 ka badan. ardadayda 9 ka mid ah ayaa ku dhimatay. buurta Elgon si joogto ah ayay u duntaa inta badan xilliyada uu roobku da'o dhoobaduna jilicdo. waase waxa ay beeralaydu ugu xilanayaan. xukuumaddu waxa ay iminka baaraysaa dilaac galay dhul 40 kiiloomitir ah oo isu mara 5 degmo. waxay doonayaan in dadku u guuraan meelo ammaan ah. waxaa jirto caqabado iyo cadaadis dhuleed. waxay taasi sababtay in dadku u guuraan meelo xasaasi ah oo aan ku habboonayn deegaan. waxaad arkaysaa dad degaya buuraha dhaadheer dushooda. waxaan isku dayaynaa inaan ku qancinno inay ka guuraan buuraha. Elizabeth, halkan waa isha keliya ay nolosha ku maarayso, ka sokow inay degan tahay. halkani waa dhulkeena, meel kale ma haysano. waa halkii ay carruurtaydu ku dhalatay. waa dhul aan aniga iyo ninkayga ka helno kharashaadka iskuulka carruurteena. 12 carruur ah ayaan korinaa. iyadoo maalmihii la soo dhaafay dhoobadu hoobanaysay, noloshu si caadi ah ayay u socotaa. gurigan waxaa laga dhisay meel dhowr mitir keliya u jirta halkii ay 2010 masiibadu ka dhacday. dhulkan carrasanka ah ee qurxoon waa meesha keliya ay dadka halkan deggan yaqaanaan. waa xudunta noloshooda, walow marar badan ay xanuun kala kulmeen.